lagu keeno reer sheekh isxaaq ayaguna waa niman irira nimanka dhulmahantana waa niman daarooda bahasha kor yaan loo qaadin hadday reer sheekh isxaaq noqdaan ma noqonayaan Soomaaliland kaliya reer iriray noqonayaan hawiye iyo ayagu waa wada dhasheen iriray noqonayaan halkaasaan u jeednaa haloo dibad haddii daaroodiya ay dhacdo iririya dhacaysa waayo ninkan likama dhulkana kama iman warahmatullaahi wabarakaatuhu waxaan daawadayaal soo dhawaada mar kale iyo walaalkeen Aadan Karaama halka dabcan iga daawanaysan bartan YouTube-ka ku leeyahay Aadan Karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay soo boqoto fadlan subscribe nagu sharaf riixka balaalka cas naqo qofka ugu horeeyay soo gadaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh lagu soo gudbiyo haddii aad horey nala joogteen kuma aanan ilaawin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay madaxana waad inoo saaran tahay muuqaalka dhammaantiinba waxaan ka codsanayaa markaasi inaad like saartaan si uu baaho bulshada u gaadho haddii aydan weli kusoo biirin baraha kale ee bulshada sida Facebook page-kayga iyo sidoo kale TikTok-ga halkaasna muuqaalo yaryar oo kooban oo xiiso leh ayaan kusoo gudbin doonaa idagana waxaan ka codsanayaa markaasi inaad soo follow gareysaan oo markaasi aad follow soo dhahdaan waa tahay intaasi kadib maanta sida fiidiyowga hordhac abaad ka soo aragteen waxaan halkan ku hayaa lagu keeno reer sheekh isxaaq ayaguna waa niman irira nimanka dhulmahantana waa niman daarooda bahasha kor yaan loo qaadin hadday reer sheekh isxaaq noqdaan ma noqonayaan Soomaaliland kaliya reer iriray noqonayaan hawiye iyo ayagu waa wada dhasheen iriray noqonayaan halkaasaan u jeednaa haloo marka waxaan ka digaynaa asagana magacaas dhadhanka xun oo meel walba ka yeeray oo qabiilaysan oo gurbaanka colaadeeda asagana waa ka digaynaa waxaan masiibahan keeni maayo haddii daaroodiya ay dhacdo iririya dhacaysa waayo ninkan likama dhulkana kama iman laakiin annagu waxaan ku baaqaynaa nabad qof muslima oo laa ilaaha illa allah ku dhawaaqaya oo xaqdarre lagu dilo iyo kacbada oo ogtihiin dadka muslimiinta qulubtoodii ah waxaa daran qofkaas muslimka dhiiggiisa ayaa daran kacbada wax loo geysto iyo qofka muslimka daran sidaas darteed Soomaaliya colaad sokeeye way ka dharagtay waxaan ku baaqaynaa reer Somaliland guud ahaan gaar ahaan reer Laascaanood walaalayaal nabadda ayaa macno leh miisaan leh dhadhan leh walaalayaal nabadda reer Laascaanood oo nabadda ka shaqeeya reer Laascaanood oo colaad waad garanaysaan annaguna waa garanaynaa natiijadeedu guri dumay wiil dhintay reer qaxay ilaahay caradiisa oo aakhirka lagu mutaysto abaar natiijada ka timaada intaas waa Soomaaliya waa dad muslimiina waa dad laa ilaaha illa allah wada dhahaya dhiigga Laascaano ku daadanaya colaadda ha laga daayo reer Laascaanoodow waxaan idin soo jeedinaynaa annagoo odayaashii hawiya annagoo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya baaqan ka soo dirayna walaalayaal cuqaasha iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada dhammaan mudaharaad iyo dhagax la tuuraahi darajo Falastiina wali alla ku keenila hal la daayo mudaharaadka dhagax la tuuray hal la daayo dadka isimada ee salaadiinta reer Soomaaliland oo dhan meel ay joogaan hal la wada fariisto hana looga shaqeeyo Laascaanood nabad iyo khayr maamulka Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland odagii duqii xabsiga kula jiray kula xiraa cilmi takara sheegay madaxweyne Muuse Cabdiyo waxaan adigana kuu soo jeedinaynaa oday Soomaaliyeed tahay waxaa tahay nin cimrigaas ilaahay ku arsuqay inaad uga shaqeydo Somaliland dhexdeeda nabad iyo khayr waxaad ku caanamaasheen oo aad ku faantaan oo aad ku xaragotaan nabadda waay caadifada ka ilaali Laascaano adigu fariiso go'aado shaala dhig dadka la hadal odayaasha la hadal systemka noocaas oo macaan ka shaqeey madaxweyne waxaba dad hay'adayn carab xaraf la ka ilaali sidaasaan maanta ku baaqaynaa waxaan telefishinada ka arkaynaa runtii dal iyo dabadad aan wadankii joogin oon Laascaano joogin oon Hargeysa joogin oo Somaliland joogin
ee ishaaraya colaad iyo dagaal iyo carab xanaf leh ha laga daayaan leenahay ka daaya carabka xanafta leh ka daaya dadka dal iyo dibad baaqa ka soo diraya ee baaqa dagaal diraya ee baaqa qabyaaladaysan diraya ee baaqa xanaftala diraya walaalayaal ka daaya bilaahi calaykum ka daaya soomaaliya gebigeedu waa qabiil meeshaa taabataa meel kale aadayda ha laga daayo reer hebel iyo reer hebel ha laga daayo magac daarood ha laga daayo magac irir ha laga daayo system degan ha lagu keeno reer sheekh isxaaq ayaguna waa niman irira nimanka dhulmahantana waa niman daarooda bahasha kor yaan loo qaadin hadday reer sheekh isxaaq noqdaan ma noqonayaan somalilan kaliya reer iriray noqonayaan iriray noqonayaan hawiye iyo ayagu waa wada dhasheen iriray noqonayaan halkaasaan u jeednaa ha loo daayo soomaalinimada ha loo daayo islaamnimada ha loo daayo deegaanka intaasaan ku baaqaynaa laakiin haddaad sheelaraydaan oo magac qabiil ku sheelaraydaan nimanku keligood ma ahan saasaan idin xasuusinaynaa wanaagaan laakiin ku baaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mushkiladdaas waxaan leenahay annagoo ku hadlayna magaca odayaasha hawiye waa u tacsiyihiin wax meeshaas ka dhacay masiibada ka dhacday waa u tacsiyihiin wixii dhinta allah u naxariisto waxa dhib qabo dhaawaca allaha shaafiyo mushkiladdii ay keentay hanti burburta iyo waxyaabahaas oo dhan waxaan leenahay bedel khayr qaba allaha siiyo walaalahaas meesha ku dhibaatooday intaas kadib waxaan leenahay waxaan rabnaa in aan ku baaqno baaq jeedino nabadeed walaalayaalow dadka meeshaas isku haysta waa dad soomaaliyeed waa dad walaalo ah waa dad derisa waa dad wax kasta wada leh waxaan ku baaqaynaa dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta soomaaliyana dagaal maanta xiisa uma qabto dhiig daata xiisa uma qabto 40 sano ayuu nagu gaaray dagaal sokeeye iyo mushkilad waxaan ku baaqaynaa nabadda meeshaas ka jirta inaan lumin maamulada hadday tahay iyo hadday tahay waxgaradka iyo hadday tahay shacabka ama Somaliland ama Laascaanood ama Puntland waxaan ku baaqaynaa nabadda in laga shaqeeyo waxaan ku baaqaynaa nabaddu qiimaha ay leedahay annaga og walaalo idinku ma ogidina waad haysataan laakiin qofka ay ka maqan tahay og mushkilad ay leedahay waxaan soo jeedinaynaa annagoo magacaad hadda maqlaysaan ku hadlayna nabadda inaan la lumin dadkaasi waa nabad iyo caano wixii qaldama waxaa lagu xalli karaa caqli waxaa lagu xalli karaa soomaalinimo waxaa lagu xalli karaa maamul ru'asadu dadku bulshadu waxay leedahay dad ru'asa oo ahlu xalli wal aqdi la yiraahdo oo maalin walba dhibaatada ku soo baxa Soomaalina dabeecadaas weligeed la heeday arintaas geed hoostii ha lagu xalliyo golo weyn ha lagu xalliyo waxaan soo jeedihaynaa in dagaalkaas la joojiyo xabadda qoriga laga baxsho ee aqligu uu shaqeeyo iyo aqoontu ay shaqeyso waxaan kaloo soo jeedinaynaa durbaan colaadeed annaga ma jeclin Soomaaliya lama rabno dibka uu leeyahay waa ognahay waliba asoo qabiilaysan ma wanaagsana walaalayaal waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo durbaanka colaadeed oo waliba qabiilaysan ma wanaagsana Soomaaliyana maanta meeshaas in loo celiyo waa ka digaynaa maamulada ka jira dalka iyo dawladaha waxaan soo jeedihaynaa in arintaas la joojiyo qabiil waxa uu dumiyaha wax ma dhiso dawladdu kuma socoto dhibka uu leeyahana waa naqaana marka waxaan ka digaynaa asagana magacaas dhadhanka xun oo meel walba ka yeeray oo qabiilaysan oo gurbaanka colaadeeda asagana waa ka digaynaa waxaan masiibahan keeni maayo qofkii maaragtay Soomaaliya inuu u hiiliyo rabaa oo reer Laascaanood ama dhulbahanta qofkan uu hiiliyo nabad ugu hiiliyo ha uu hiiliyo maamul wanaag ha loogu hiiliyo tolnimo iyo sokeeyanimo iyo derisnimo wax walba ha loogu hiiliyo annagu waxaan ku baaqaynaa colaado inaysan keenayn xal waxa Soomaaliya burburiyo dhibaateeyo ka reeba ficildi adduunka ka reeba waa nabad la'aan waa dagaal waa col ilma adeerayaal waxaan ka digaynaa arintaas masiirka meeshay ku dhamaanay waa naqaana
waxay ku dhammaaneen dhimasho, waxay ku dhammaaneen dhaawac, waxay ku dhammaaneen agoon, waxay ku dhammaaneen asaay, waxay ku dhammaaneen qax, waxay ku dhammaaneen dal burbura. halkaasay aadi waa naqaana waxay keeni doonto. marka ha laga digtoonaado arrintaas. waxaan leenahay Somaliland oo Muuse Biix oday u yahay, maamul wax ku xalli, caqli wax ku xalli, aqoon wax ku xalli. dadka meeshaas jooga dad xigmad badan waay, dad caqli badan, dad aqoon badan waay. ha u hormareen odayaasha dhaqanka iyo culamo u diinka iyo ganacsatadu ha soo hormareen meesha qorgu hadda usoo horeeyo, xabadda usoo horeyso, ciidamada dib ha loo dhigo, ha soo hormareen caqliga iyo dadka maaragtay aqoonta u saaxiiba oo xalka weligoodba ka shaqeynaya hadeerna waaga u taagan. kuwaasaan rabnaa inay soo hormaraan. annaga intaasaan soo jeedihaynaa. odayaashii akhyaartu waa badan yihiin. warkeenu ujeedka uu leeyahay intaas waaye. waa in la helo nabad, waa in dagaalka la joojiyo, waa in laga wada hadlo wixii meeshaas ka dhacay. waa tahay daawadayaal, intaas ayaan muuqaalka kusoo gabagabeynaya. walaalkiin aadan karaama, haddii ay tahay marka ugu horreysay adina soo booqato fadlan subscribe ugu sharaf riixka mareelka cas, noqo qofka ugu horreeyay soo galaan muuqaaladii dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha aan kusoo gudbiyo. haddii aad horey noola joogtayna aad iyo aad ayaad umahadsan tahay, madaxa waad noo saaran tahay. dhammaantiin waxaan ka codsanaya markaas inaad muuqaalka like muhiim ayay tahay inaad like noo sii saartaan si uu u baaho bulshada u gaadho. tan iyo muuqaalka mid lamida intaan ku kulmayno, nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.